nabadgelyo mar kale korkiina ha ahaato waa anigii waa Shinigestiir kuna soo dhawaada barashada xisaabta ardayay sida halkan idinka muuqata waxaynu bilaabaynaa cutubka koobaad ee xisaabta fasalka 7 kaasoo ciwaankiisu yahay tirooyinka lakab ardayay fiiriya bogga 2 ee buugiina xisaabta fasalka 7 hordhaca wuxuuna leeyahay fasaladii hore sida fasalkii 6 waxaad ku soo barateen abyoonayaasha iyo jajabiyada siday doontaa noqotee abyoonayaashu ururka tirooyinka abyoonayaashu ma faahfaahin karaan oo kuma filna dhammaan xaaladaha nolosha tusaale ahaan halkan soo fiiri ardayay dhererka arday ayaa wuxuu noqon karaa 1 mitir oo loo akhrinayo badh mitir ayuu dhererka arday noqon karaa tiradan badhka ah ee qaabka jajabka u qoran ma ku jirto oo kamid ma aha ururka tirooyinka abyoonayaasha ee aynu ku soo baranay fasalkii 6 sidoo kale ardayay qiimaha buug wax lagu qoro ayaa suuragal ah in uu noqdo bir 3.25 senti buug wax lagu qorto ayaa qiimihiisu wuxuu noqon karaa 3.25 senti 3 riyaal iyo 25 senti tirooyinkan ay dhibicdu u dhaxayso iyagana waxaa la yiraahdaa jajab tobanle waana soo aragnay fasaladii 6 waynu ku soo aragnay oo jajab tobanlayaashuna sidoo kale kamid ma aha ururka tirooyinka abyoonayaasha sida awgeed ayaynu tirooyinka abyoonayaashu ugu filnayn nolol maalmeedkeena caadiga ah iyo xaaladaha noloshaba hase ahaatee ardayay si loo qeexo xadiyada noocan ah xadiyadan waxaad u baahan tihiin in aad barataan oo aad fahantaan ururka tirooyinka lakab wuxuu idinka saacidayaa in aad fahantaan xadiyada noocan ah ama tirooyinkan noocan ah hase haatee cutubkan koobaad ayaad ku baran doontaan nuxurka tirooyinka lakab isbarbardhigga iyo hoorsanaanta tirooyinka lakab arday aynu ku horeyno hadduu alla kuusama ogol yahay cutubka koobaad cutub hoosaadkiisa ugu horeeya ee koobaad kaasoo ciwaankiisu yahay nuxurka tirooyinka lakab ardayay cutubka koobaad cutub hoosaadkiisa koobaad cashirkiisa ugu horeeya qaybtiisa ba waxaynu ku baranaynaa naqtiinka ururka tirooyinka abyoone ardayay waxaynu ku naqtiimaynaa hadduu alla kuusama ogol yahay tirooyinkii abyoone ee aynu ku soo baranay fasalkii 6 ururka tirooyinka abyoone waa ururka ka kooban ururka tirooyinka tirsiimo lidkooda oo loo yaqaano tirooyinka 10 iyo ururka tirooyinka idil ardayay ururka tirooyinka tirsiimo waa dhammaan tirooyinka wax lagu tirsado ee 1 2 3 4
oo weligood sii soconaya 5 6 7 8 mana laha meel ay ku dhamaadaan. ardayay ururka tirooyinka tirsiimo waxaa loo qoraa sidan nac weyn markaas hadii waxay la mid tahay nacda weyn oo ah ururka tirooyinka tirsiimo waa kadib waxaad furi tidicdaas kadib aad ku bilaawi 1 hakad 2 hakad 3 hakad 4 hakad 3 dhibcoodna waxay inoo sheegayaan in ay ururka tirooyinka tirsiimo ay weligood sii socdaan oo ayna lahayn meel ay ku dhamaadaan. hadduu alla kuu samoogol yahay lidkoodana ururka tirooyinka tirsiimo waxay leeyihiin lid A oo ah tirooyinka 10 lidkoodana waa tirooyinka 10 ee loo qoro sidan 1 10 2 10 3 10 4 10 iyagana weligood way sii soconayaan. xusuusnow ardayay xusuusnow tiro walba oo ah tiro tirsiimo ah waxay leedahay tiro 10 oo lid ku ah. tiradan waa tiro tirsiimo. tiradani waxay leedahay tiro 10 oo lid ku ah taasoo ah 1 10 taa weeyaan tiradeeda lidka ku ah ee ay leedahay. labana waa tiro tirsiimo iyadana waxay leedahay 2 10 oo ah tirada lidka ku ah. saddexna waa tiro tirsiimo iyadana sidoo kale waxay leedahay tiro ku ah lid oo ah 3 10. afarna waa tiro tirsiimo tiradaasna sidoo kale waxay leedahay tiro lid ku ah oo 10 oo ah 4 10. tiro walbana tiradeeda oo 10 ayay leedahay oo lid ku ah. intaasna waa inaad xusuusnaataan. xusuusnow tiro walba oo tiro tirsiimo ah waxay leedahay tiro 10 oo lid ku ah. ardayay tirooyinka idilna waa tirooyinka tirsiimo oo uu eber la jiro ama la socdo waxaana loo qoraa sidan wa'da weyn. hadduu alla kuu samoogol yahay wa'da weyn waxay la mid tahay baad dhihi wa'da weyn waxa weeyaan calaamada tirooyinka idil waxay la mid tahay eber 1 2 3 4. tirooyinkana waa tirooyinkii hadduu alla kuu samoogol yahay tirsiimo. sidaa daraadeed tirooyinka idil waa tirooyinka tirsiimo oo uu eber ku lamaan yahay oo uu la socdo. kuwan marka ayaa waxaa la isku yiraahdaa tirooyinka idil. intaas waxaan rajaynayaa inaad si fiican u xasuusan tahay. haddana aynu isla eegno qeexida 1.1. qeexidan waxay culimada xisaabta leeyihiin ardayay ururka tirooyinka ka kooban ururka tirooyinka tirsiimo lidkooda oo ah tirooyinka 10 iyo eber ayaa loo yaqaanaa ururka abyoonayaasha waxaana loo qoraa sidan z weyn. zdaas waa calaamada ururka tirooyinka abyoonayaasha. ururka tirooyinka abyoonayaasha waxaa weeye hadduu alla kuu samoogol yahay waa ururka halkan nooga muuqda. dhibcahaas waxay u taagan yihiin tirooyinka 10 ee ka yar 4 oo weligood sii soconaya. marka -4 hakad -3 hakad -2 hakad -1 eber 1 2 3 4. ururka noocan ah ayaa waxaa la yiraahdaa ururka tirooyinka abyoonayaasha. intaas waxaynu si fiican ugu soo sharaxnay oo ku soo baranay fasalkii 6. ardayay haddaba halkan soo fiiri. halkan soo fiiri ururka tirooyinka abyoonayaasha waxaan ku soo koobi karnaa oo ku soo ururin karnaa fahankiisa jaantuuska feen ee hoos inooga muuqda. halkan markaa waxaa inooga muuqda jaantuuskii feen. jaantuuskan wuxuuna tusayaa inuu ka kooban yahay 3 jaantuus oo hadduu alla kuu samoogol yahay isku dhex jira. waa jaantuuskan huruuda ah iyo jaantuuskan madow iyo jaantuuskan cad.
waxayna tusayaa jaantuuskan inuu jaantuuska huruudda ah uu ku sii dhex jiro jaantuuskan madow. jaantuuskan madow iyo jaantuuskan huruudda ee isxambaarsanna in ay ku sii dhex jiraan hadduu alla kuusan ogol yahay jaantuuskaas cad. marka jaantuuskan madow waxaan sheegaa jaantuuskan huruudda ah waxuna sheegaya in tirooyinkan ku dhex jira ee uu xambaarsan yahay in ay yihiin ururka tirooyinka tirsiimo oo loo soo qaato calaamadda nacda weyn ah. waana tirooyinka ay ka bilowdaan 1 2 3 4 5 ee weliga sii soconay. marka ururka tirooyinka tirsiimo wuxuu jaantuuskan inoo sheegayaa in ay sidoo kale ay xubin ka yihiin jaantuuskan madow oo ah ururka tirooyinka idil. marka ururka tirooyinka tirsiimo dhammaantood waxay xubin ka yihiin ururka tirooyinka idil. sidaa darteed tiro walba oo ah ururka tirooyinka tirsiimo waxaad dhihi kartaa waa tiro idil ayaad dhihi kartaa. marka halkan waxay nooga muuqataa tirooyinkii tirsiimo 1 2 3 4 5 6 7 8 iyo wixii lamida oo uu ku lamaan yahay eber. sidaa daraadeed ururkan waa ururka tirooyinka idil. tiro walba oo ah tiro tirsiimo waxaad dhihi kartaa waa tiro idil. sidoo kalena jaantuuskan madow waxaa inooga muuqataa inuu ku sii dhex jiro jaantuuskan cad oo ah ururka tirooyinka abyoni. tiro walbo tiro tirsiimo iyo tiro idil ah waxay ku sii dhex jiraan sida halkan kaaga muuqata jaantuuskan fen ee cad ee ururka tirooyinka abyoneyaasha. waa kana eber oo ah tirooyinka idil 1 2 3 4 5 6 oo ah iyagana tirooyinka tirsiimo oo dabcan sidoo kalena ah tirooyin idil waxay ku hoos jiraan oo ay ka mid yihiin ururka tirooyinka abyoneyaasha. sidoo kalena halkan waxay inooga muuqda tirooyinkii tabnaa. tirooyinka taban iyagu ma aha ururka tirooyinka idil iyo ururka tirooyinka tirsiimo toona ma ah, laakiin waa ururka tirooyinka abyoni. eber waxaad dhihi kartaa waa ururka tirooyinka idil laakiin ma dhihi kartid eber waa ururka tirooyinka tirsiimo. sidoo kale eber waxaad dhihi kartaa waa ururka tirooyinka hadduu alla kuusama ogol yahay abyoni laakiin ma dhihi kartid waa ururka tirooyinka tirsiimo. tirooyinkan tabanna waxaad dhihi kartaa oo keli ah in ay yihiin ururka tirooyinka abyoni laakiin ka mid ma aha ururka tirooyinka idil iyo ururka tirooyinka tirsiimo. laakiin tirooyinkan 1 2 3 4 tirooyinka wax lagu tirsado waxaad dhihi kartaa waa ururka tirooyinka tirsiimo. waxaad dhihi kartaa waxay kaloo ka mid yihiin ururka tirooyinka idil. sidoo kalena waxay ku jiraan ururka tirooyinka abyoni. saddexdaa magac ayay xambaarsan yihiin. haddaba jaantuuskan wuxuu inoo sheegayaa dhammaan ururka tirooyinka tirsiimo in ay ku jiraan ururka tirooyinka idil. ururka tirooyinka idilna dhammaantood in ay ka mid yihiin ururka tirooyinka abyoneyaasha oo la isku wada yiraahdo ururka tirooyinka abyoneyaasha. halkanna waxaa inooga muuqda oo inoo sheegaysaa in ururka tirooyinka tirsiimo uu u yahay hormo ururka tirooyinka idil. taas macnaheedu waxay tahay xubnaha ururka tirooyinka tirsiimo dhan waxay xubno ka yihiin ama ay ka mid yihiin ururka tirooyinka idil. sidaa darteed waxaad u akhrinaysaa ururka tirooyinka tirsiimo waxay hormo urur u yihiin ururka tirooyinka idil. ururka tirooyinka idilna sidoo kale waxay hormo urur u yihiin oo ay ka mid yihiin xubnahoodu ururka tirooyinka loo yaqaano abyoneyaasha. marka waxaad u akhrinaysaa ururka tirooyinka tirsiimo waxay hormo urur u yihiin ururka tirooyinka idil. ururka tirooyinka idilna sidoo kale waxay hormo urur u yihiin
ururka tirooyinka abyoonayaasha. intaasna in aad samayn kartid waa laga maarmaan. intaas inaad samaysid waa muhiim. arday halkaas aynu kaga gudubno fahamka ku aadan hadduu alla kuu samoogal yahay jaantuuskan feen ee halkan inooga muuqda. arday ururka tirooyinka abyoonayaasha waxaa lagu muujin karaa xariiq tiro korkeeda. waan soo baranay eegana waanu eegaynaa sida halkan kaaga muuqata. halkan waxaa kaaga muuqata xariiqdii tiro. xariiqdii tiro waxaa kala baray eber oo halka kaa muuqda. eber waa unuga kala bara xariiqda. tirooyinka eber dhanka midig ka xiga waa tirooyinka togan. tirooyinka dhanka bidix eber ka xigana waa tirooyinka taban. tiro walba oo tiro ka xigta dhanka bidix way ka yartahay. sidaa darteed -7 waxay dhanka bidix ka xigtaa -6. sidaa darteed -7 waxay ka yartahay -6. -6na waxay ka yartahay -5. -5na waxay ka yartahay -4. -4na waxay ka yartahay -3. -3na waxay ka yartahay -2. -2na waxay ka yartahay -1. -1na wuxuu ka yaryahay eber. eberna marka wuxuu ka wen yahay dhammaan tirooyinka dhanka bidix ka xiga, wuxuuna ka yaryahay dhammaan tirooyinka dhanka midig ka xiga. eber wuxuu ka yaryahay 2. waxaan sheegaa 1 waxay ka yartahay 2. 2 waxay ka yartahay 3. 3 waxay ka yartahay 4. 4 waxay ka yartahay 5. 5na waxay ka yartahay 6. 6na waxay ka yartahay 7. calaamadahaasna weligood waxay noo sheegayaan inay sii soconayaan tirooyinkan togan. calaamadaadana waxay noo sheegaysaana iyadana in ay tirooyinka taban ay weligood sii soconayaan. sidaa daraadeed tiro walba tirada midig ka xigta ayaa ka weyn marka loo fiirinayo xariiqda tiro. tusaale ahaan hadda 6 waxay dhanka midig ka xigtaa 5. sidaa darteed 6 waxay ka weyn tahay 5. 5na waxay dhanka midig ka xigtaa 4. sidaa darteed 5 waxay ka weyn tahay 4. iyo dhammaan tirooyinkan oo dhan oo 4 dhinaca bidix ka xiga. eber wuxuu dhanka midig ka xigaa -7. sidaa daraadeed eber wuxuu ka wen yahay -7. sidaas marka ayaa loogu meelayaa xariiqda tiro ururka tirooyinka abyoonayaasha. bal ardayay aynu isla fiirino tusaalaheena koobaad oo ku yaala bogga 4 ee buugaaga xisaabta fasalka 7. tusaalaheena koobaad wuxuu leeyahay adeegso xariiq tiro korkeeda. adeegso xariiq tiro korkeeda si aad u go'aamisid, si aad u ogaatid tirooyinka soo socda midda weyn iyo midda yar adoo ku buuxinaya meelaha bannaan sumadaha dheeliga ee ka weyn ama ka yar. waa kuwana sumadihii dheeliga. calaamadan waxaa la yiraahdaa oo aad ogsoon tihiin calaamadda ka weyn. tanna waxaa la yiraahdaa calaamadda ka yar. waxaan ogahay in aad xusuusan tihiin. ardayay waxaa lanaga rabaa in aynu tusaalaheena koobaad oo ka kooban ba, ta, ja iyo xa aynu go'aamino tirooyinkan abyoonayaasha ah ee halkan inooga muuqda. in aynu go'aamino oo aynu sheegno oo aynu mataqaanaa caddayno tirada weyn iyo tirada yar inagoo adeegsanayna xariiqdan tiro ee halkan inooga muuqata. waxaynu ku horeynaynaa tusaalaheena ugu horeeya ee ba. waxaa laynaga rabaa in aynu go'aamino labadan tiro ee kala ah 5 iyo eber, midda yar iyo midda weyn inagoo u eegayna xariiqdan tiro ee halkan inooga muuqata. halkan waxaa inoogu qoran furfuris.
waxaan rabnaa markaa in aan go'aamino 5 iyo eber midda weyn. haddaba arday 5 xariiqda tiro waxay kaga taalaa halkaas sida idin muuqata. eberna xariiqda tiro waxay kaga taalaa halkaas oo waa unuga kala bara xariiqda tiro. sidaa darteed 5 waxay dhanka midig ka xigtaa eber. tiro walbo abyoona ah oo xariiqda tiro ku yaalana tirada midigta xigta waxay ka weyn tahay tirada bidixda ka xigta. waan ogahay inaan wada ognahay in ay 5 ka weyn tahay eber, laakiin waxaan doonayaa in aynu ku fahanno xariiqda tiro. xariiqda tiro eberku wuxuu dhanka bidix ka xigaa tirada 5. 5na waxay dhanka midig ka xigtaa eber. tiro walbo tiro ka xigta dhanka midig waxay ka weyn tahay tirada ka xigta dhanka bidix. sidaa darteed eber maadaamuu dhanka bidix ka xigo 5, 5 way ka weyn tahay eber. eegana aynu u gudagalno tusaalaheena xiga ee ta. tusaalaheena ta waxaan haysanaa halkan 5 10 iyo 3 10 oo laynaga rabo in aynu go'aamino labadan tire abyoonayaasha ah midda weyn iyo midda yar. halkan soo fiiri 5 waxay xariiqda tiro kaga taalaa bartaas ama kobtaas menshama unjeega. 3 10na sidoo kale waxay kaga taalaa bartaas. labadan tiro midebaa bidix xigta midebaase midig xigta. waxaa inoo muuqata in ay 5 ay bidix ka xigto 5 10 in ay bidix ka xigto 3 10, 3 10na in ay midig ka xigto 5 10. sidaa daraadeed tirada midigta xigta oo ah 3 10 waxay ka weyn tahay tirada bidix xigta oo ah 5 10. sidaa awgeed 5 10 oo bidix ka xigta 3 10 way ka yartahay. marka waxaad dhahaysaa 5 10 waxay ka yartahay 3 10. 2 10 iyo waxaan fiirinaynaa 4 10 keebaa yar keebaase weyn. hay 2 10 waata 2 10 halkaasay inoo taalaa. hay 4 10na halkan ayay inoo taalaa. waan gartay 4 10 waxay dhanka bidix ka xigtaa 2 10. sidaa darteed 2 10 ayaa ka weyn 4 10 oo waxaan dhahaynaa markaa 2 10 waxay ka weyn tahay hadduu alla kuu samoogal yahay 4 10. waa hagaag. ta ugu dambeysay tusaalaheena koobaad waxaa weeye waxaana la yiraahday 3 10 iyo isbarbar dhiga 1 togan. waa hagaag. 3 10 waa ta halkan inoo taala oo ku taala xariiqda tiro. 1 toganna waa ta halkan inoo taala. 1 togan oo ka xigta dhinaca midig 3 10 waxaynu dhahaynaa 3 10 oo ka xigta dhinaca bidix 1 togan way ka yartahay. sidaa darteed 3 10 waxay ka yartahay hadduu alla kuusama ogal yahay 3 10 waxay ka yartahay 1 togan sababtoo ah 3 10 waxay dhanka bidix ka xigtaa hadduu alla kuusama ogal yahay 1 oo waatan halkanay ku taalaayo 1na waxay ku taalaa dhinaca midig oo -3 waxay dhanka bidix ka xigtaa -1. sidaa darteed way ka yartahay. marka ardayo waxaa laga rabaa inaad xasuusnaatid tiro walba oo abyoona ah tirada midig ka xigta ayaa ka weyn. tiro walba oo abyoona ahna tirada bidix xigta waxay ka weyn tahay. waxaan sheegaa tirada bidix xigta ee xariiq tiro korkeeda ah waxay ka yartahay tirada midig ka xigta. -7 waatan waxay -7 dhinaca bidix ka xigtaa -6. sidaa darteed -7 waxay ka yartahay -6. -6 waxay dhinaca bidix ka xigtaa -5. sidaa darteed -6 waxay ka yartahay -5. -5 ama 5 10 waxay dhinaca
bidix ka xigtaa hadduu alla kuu samoogol yahay -4 sidaa darteed -5 way ka yar tahay -4 marka -7 way ka yar tahay -6 -6 waxay ka yar tahay -5 sababtoo ah midig ayay ka xigtaa -5 waxay ka yar tahay -4 -4 waxay ka yar tahay -3 -3 waxay ka yar tahay -2 -2 waxay ka yar tahay -1 -1na waxay ka yar tahay eber eberna wuxuu ka yar yahay 1 1na wuxuu ka yar yahay 2 2na waxay ka yar tahay 3 3na waxay ka yar tahay 4 4na waxay ka yar tahay 5 5na waxay ka yar tahay 6 6na waxay ka yar tahay 7 7na waxay ka yar tahay tirada ku xigta ee ah 8 iyo wixii dhinacaas oo dhan ka sixiga tiro walba tirada midigta ka xigta marka xariiqda tiro korkeeda la joogo tirada midigta xigta waxay ka weyn tahay tirada bidix ka xigta oo dhan hadda 7 waxay ka weyn tahay tirooyinkan oo dhan eberna waxay ka weyn tahay dhammaan tirooyinkan 10 ee bidix ka xiga oo dhan intaas iyo dhibicdaas waxaan rajaynayaa in aad ila fahamtay halkaas aynu kaga gudubno tusaalaheena koobaad ee ugu horeeyay eegana arday halkan soo fiiri bogga 4 ilaa iyo 5 waxaynu ku eegaynaa oo inooga muuqda oo aynu isdul istaagaynaa cutubka hadduu alla kuu samoogol yahay koobaad cutuboosaadkiisa koobaad cashirkiisa koobaad qaybtiisa ta ba waynu soo aragnay qaybtan ta waxaynu hadduu alla kuu samoogol yahay ku baranaynaa ururka tirooyinka lakab qaybtii ba'na waxaynu ku soo naqtiinay ururka tirooyinka abyooniyaasha ardayay fasalkii 6 waxaad ka soo shaqayseen oo ku soo barateen jajabyada intaas waxaa xasuutaan marnajeenaya intaynan qeexin oo aynan falanqaynin ururka tirooyinka lakab ardayay inta aynan qeexin oo aynan falanqaynin oo aynan gorfaynin ururka tirooyinka lakab aynu ka jawaabno su'aalahan soo socda su'aasheena ugu horeysa ardayay waxaana la yiri u qor tirooyinka soo socda saansaantan a la hoos dhigay ba oo ah saansaan jajab waagaag su'aasheena ugu horeysayna la yiraahdo u qor tirooyinka soo socda saansaanta a la hoos dhigay ba waxay ka kooban tahay ba ta ja ha iyo kha waxa weeyaan waa 5 su'aalood waxaynu ku horeynaynaa hadduu alla kuu samoogol yahay su'aasha ba waxaa lagu yiraahdaa 3.25 waxaad u qortaa jajab ahaan waan soo baranay waxaad ku soo barateen fasalkii 6 eegana waxaan idinku tusi sida looga dhigo tirooyinkan jajab tobanlayaasha ah jajab bal aynu ku bilowno ardayay in aynu jajab tobanlahan halkan inooga muuqda ee dhahaya 3.25 aynu ka dhigno jajab ay saansaantiisu tahay a la hoos dhigay ba ardayay markaynu rabno in aynu ka dhigno jajab tobanle jajab waxaynu ognahay haddii 3.25 oo ah jajab tobanle aynu ku dhufano 1 haddaynu labada isku dhufano in ay intani ay inoola mid tahay oo ay noola eg tahay hadduu alla kuu samo ogol yahay 3.25 oo lagu dhuftay dhibcahaas aad arkaysid waxaa sidoo kale loo soo qaataa calaamadda isku dhufashada marka 3.25 oo lagu dhuftay 1 waxay noola eg tahay oo ay noola mid tahay 3.25 oo lagu dhuftay 100 100 loo qaybiyay 100 oo 100 marka loo qaybiyay 100 waxaynu helaynaa 1 sidaa darteed 3.25 lagu dhuftay 1 waxay noola mid tahay 3.25 oo lagu dhuftay 100 loo qaybiyay 100 marka si aynu
3.25 aynu oga dhigano jajab waxaynu isku dhufanaynaa 3.25 iyo 100 loo qaybiyo 100 arday intan marka waxaynu la mid tahay haduu alla ku samoogol yahay marka koobaad waxa la soo qaataa hooseeyaha ayaa siisa loo soo qaataa hooseeyaha ah 100 halkaas isoo dhig 100kii marka 100kan hooseeyahan ah aad halkaas soo dhigatay talaabada labaad ee aad qaadaysid waa in aad sameysaa in aad 3.25 aad ku dhufataa 100ka kale sareeyaha ah waxa dhahaynaa 3.25 lagu dhuftay 100 maxay noqonaysaa waxaan ogahay in aan ku soo baranay fasalka 6aad sida la isku dhufto jajab tobanlayaasha iyo tirooyinka wata eberada oo ah si fudud 100ku wuxuu wataa 2 eber labadaas eber uu wato ayaa waxay ku hogaaminaysaa inta jeer ee barta jajab tobanlaha ee ah dhibicdaas aad dhanka midig u soo raraysid 100ku wuxuu wataa 2 eber sida darteed barta waxaynu dhanka midig u soo raranaynaa 2 jeer oo barti markaan halkan keentid halkan soo fiir waata barti waan soo rarnay halkaas ay timaaday 2 iyo 5 dhexdooda ay soo gashay waa markii koobaad haddana waan ka soo rarnayo barti waxay soo gaadhay 5 gadaasheeda markay barti ay timaaday 5 gadaasheeda tiradii ahayd 3.25 waxay isku bedeshay 325 sidaa darteed 3.25 lagu dhuftay 100 waxay noola mid tahay 325 oo loo akhrinayo 325 markaan ogaanay markii labada la isku dhuftay in ay tahay 325 waxaad iiga soo dhigtaa sareeye halka markaad joogtid jajab waxaad haysataa uu hooseeyihiisu yahay 100 haddaad rabtid halkaas waad ku joogi kartaa haddaad rabtidna waad sii yareyn kartaayo hal tiro ayaad u wada qaybini sareeyaha iyo hooseeyaha waxaad halkan u qaybin kartaa hadda tusaale ahaan 325 iyo 100ka waxaad u wada qaybin kartaa oo u wada qaybsama 5 maadaama 325 godkiisa ugu dambeeya ay tahay 5 100kana godkiisa ugu dambeeya ay tahay eber sidaa darteed labadooda waxa u wada qaybsama 5 hay 325 aynu u qaybino haduu alla ku samoogol yahay 5 waxa dhahaynaa 325 loo qaybiyay waxa loo qaybinayaa 5 markaas aad dhahaysaa tirada lagu dhufto 5 ee isiisa 325 waa tirade haddii aadan xasuusnayn waxaad dhihi kartaa tirada lagu dhufto 5 ee isiisa labada god ugu horeeya tiradan waa 32 waa tirade waxaan ogahay inay tahay dabcan 6 oo 6 haddaan ku dhufto 5 waxay igu soo dhaweysaa 32 oo waxay noqoni 30 markii 6 lagu dhufto 5 waxaanu helaynaa 32 laga jaray 30na waxaynu ognahay inay tahay 2 markaad intaas samaysid 5tan isoo daji oo halkan ii keen halka markaad keentid ayaad haddana waxaad isweydiini tirada lagu dhufto 5 ee isiisa 25 waa tirade dabcan waa 5 oo 5 lagu dhuftay 5 waxaynu helaynaa 25 laga jaray 25na waxaynu la mid tahay eber oo ah haraaga sidaa darteed 5 loo qaybiyay 325 waxaynu la mid tahay 65 inta marka waxaynu la mid tahay haduu alla ku samoogol yahay 65 waan sii yareysanayna 65 haye 100 loo qaybiyay 5 dabcan waxaan ognahay inay tahay 20 jajabkii 325 boqolaad waa sii yareeno wuxuu noqday 65 20aad haddaa rabtidna
waad sii yareyn kartaa ilaa aad ka gaadhid jajabkooda ugu yar ee aan la sii yareyn karin oo ah haddii aan 65 u qaybin 5 maadaama 5 ugu dambayso 65ta 20kan ay ugu dambayso eber 5 baa u wada qaybsami karta 65 loo qaybiyo 5 maxaan helaynaa waxaanu helaynaa 13 hay 20 loo qaybiyo 5 maxaanu helaynaa waxaanu helaynaa 4 sidaa daraadeed 13 afaraad waa saansaanta ugu yar ee jajabka 3 2 5 boqolaad 325 boqolaad jajabkiisa ugu yar ee u dhigma waa 13 afaraad sidaa daraadeed 3.25 oo ah jajab 10 leh wuxuu la mid yahay 325 boqolaad ama wuxuu la mid yahay oo kale 65 labaatanaad sidoo kalena wuxuu la mid yahay 13 afaraad ayuu la mid yahay sidaas ayaa looga dhigaa jajab 10 layaasha haduu alla kuu sama ogol yahay jajab inta marka aynu iska tirtirno si aynu haduu alla kuu sama ogol yahay jawaabaha kalena aynu u raadino arday marka waxaanu dhahaynaa 3 jawaabta ba 3.25 waxaynu la mid tahay saansaantii ugu yareed ayaynu soo qaadanaynaa oo ah 13 afaraad marka jajabkii saas ayaan uga dhignay eegana kan ayaynu ka dhigaynaa saansaantan loos dhigay ba oo ah jajab hal labaad oo ah jajabka loo yaqaano jajab dhafan ayaynu ka dhigaynaa jajab waan garta halkan igu soo qorto su'aalaha ta hal labaad muxuu ku noqonayaa jajab marka koobaad hooseyahan oo ah 2 siis u soo qaado halkaas soo dhigo marka intaas samaysid ardayo kadib talaabada kale qaas waxay tahay hooseyaha oo ah 2 waxaad ku dhufataa tirada horgalaha ah ee tirada idil hay 2 lagu dhuftay hal waa imisa waa un labadii kadib aad dhahaysaa lagu daray maxaa lagu darayaa waxaa lagu darayaa tiradan sareeyaha ah oo maxay noqon marka waxay noqon 3 marka halka ay soo dhig hal labaad waxay kula mid tahay 3 labaad oo ah jajab hooseyihiisu uu yahay 2 kaasina wuxuu ahaa tusaalaheena ta eegana tusaalaheena ja aynu u gudubno tusaalaheena ja waxaana la yiraahday 1.6 minus 1.6 isagana aan ka dhigno saansaanta loos dhigay ba oo ah jajab halkana ku xisaabsanina marka koobaad tusaalaheena ja waxaa lagu yiraahday minus 1.6 waxaad ka dhigtaa jajab sidii iyo habkii aad uga dhigtay 3.25 jajab baad sameeyni markaas aad 1.6 minus 1.6 lagu dhuftay calaamadaas waa ku dhufasho dhibicdaas weyn lagu dhuftay maxaa lagu dhufanayaa hal intaas waxay ila mid tahay minus 1.6 oo lagu dhuftay 100 la hoos dhigay 100 waa isu kaymid inta markaas sameeysid ayaa halkan igu soo qoray waxay la mid tahay maxay ku la mid tahay 100ka sidiisa hooseyaha sidiisa igu soo qaad hooseyahan sidiisa u soo qaado halkan soo dhigo halka markaas soo dhigid 100kaas kadib minus 1.6 waxaad ku dhufataa sareeyaan 100ka oo halkan soo dhigo minus 1.6 lagu dhuftay 100 maxay ku la mid tahay 100ku wuxuu wataa 2 eber dhibicdaas meesha taalo waa halkaas dhibicdaas ama barta jajabkan 10 laha ah dhibicdiisaas ayaad 2 jeer dhanka midig u rari oo marka waxay noqon minus 1.6 waatana dhibicdii 2 jeer soo rar kow halkaas timaaday halka marka timid haddana dhibicdii halka ka soo raro halkan kan godka kale gadaashiisa godkan muxuu noqon marka wuxuu noqon eber ayuu noqon marka tiradii 1.6 waxay isku bedeli oo ay noqoni minus 1.6 eber oo ah minus 160 marka hadda sareeyaheen wuxuu noqoni minus 160 jajab waxaan haysanaa hadda uu hooseyihiisu yahay 100 marka minus 160 boqolaad haddaad rabtid waad sii yareyn kartaa eberkan iyo eberkan
وإسلا بحيان maxaa kaaga soo haray waxa kaaga soo haray -16 la hoos dhigay 10 ayaa kaaga soo haray kuwan aan iska tirtirno haduu alla ku samoogel yahay kuwan aan iska tirtirno marka hay maxay noqotay -16 tobanaad ayay noqotay hadaa rabti si yare -16 waxaad u qaybisaa 2 waxaad heli -8 hay 10 waxaad u qaybisaa 2 isagana waxaad heli 5 oo ah saansaanta ugu yar halka ma dhaafi kartid oo tiro wada qaybsanta sareeyaha iyo hooseeyaha ma jirto sidaa daraadeed -6 dhibic waxaan jeedaa -1 dhibic 6 waxay noola mid tahay -8 shanaad oo ah jajab isagana aynu halkaas kaga gudbino oo tusaalaheena ja ha aynu ugu galno ha waxa la yiraahdaa 4 oo ah tiro abyoona ah waxaad ka dhigtaan jajab marka rabtid 4 inaad ka dhigtid jajab adoon iskadeedin tiro walba abyoona ah hoos waxay ku wataa oo ay leedahay hal marka 4 halaad 4 loo qaybiyo hal waxay ku la mid tahay 4 marka 4 waxay jajab aan aad uga dhigi kartaa sidan 4 halaad aad uga dhigi kartaa oo la mid ah 4 taasina waa jawaabta ha eegana aan ugu galno jawaabta kha ayaynu ugu galaynaa kha waxa lagu yiraahdaa marka hal labaad oo ah jajab lagu daray eber dhibic 6 oo ah jajab 10 leh waxaad ka dhigtaa markaad isku geesid jajab ka dhig wahagaag horta hal labaad halka ay soo dhig taas waa jajab hal labaad halka ay soo dhig hay ee hadda marka aan eber dhibic 6 ka dhigto eber dhibic 6 aan ka dhigto jajab hay eber dhibic 6 lagu dhuftay badii 100 la hoos dhigay 100 intaas marka sameeysid ay wax dhihi 100 ka siisa iyo soo qaad hay eber dhibic 6 waxaad ku dhuftaa 100 eberkan iyo 60 dhibicda u dhaxaysa laba jeer dhinaca mid ku sarko laba maxay isku noqon marka waxay noqon 60 ay noqon marka 60 boqolaad waxay noo la mid tahay eber dhibic 6 60 boqolaad lagu daray hal labaad badii marka 60 lagu daray 100 labada jajab markaas ayaad isku darsani labada jajab markaas isku darsatid jajabka kaaga soo baxa waxa weeyaan waa jawaabtii laga rabay aynu marka isku darsano tanna aynu iska tirtirno haduu alla ku samoogel yahay wahagaag marka la isku daray labada jajab ee hooseyahoodu kala duwan yahay waxaa la sameeyaa haduu alla ku samoogel yahay marka koobaad sareeyaha jajabka hore ay waxa lagu dhuftaa hooseyaha jajabka dambe kadib hal dhaha lagu daray marka kadib dhaha lagu daray maxaa lagu daray waxa lagu daray hooseyaha jajabkan hore oo lagu dhuftay sareeyaha jajabkan dambe hay hal waxa lagu dhuftaa 100 hal lagu dhuftay 100 waa 100ki hay lagu daray baadii maxaa lagu daray waxa lagu daray hooseyahan oo lagu dhuftay sareeyahan waa laba lagu dhuftay 60 oo ah 120 hay inta markaas sameeysid ayaa la isku dhuftaa labada hooseyaha waxa weeye waa laba lagu dhuftay 100 oo ah 200 inta markaa xisaabi 100 lagu daray 120 waxa weeyaan hadii ala ku samoogel yahay 220 hay hooseyuhuna waa 200 soo qaado sidiisa inta markaa sameeysid labadan waa si yareyn kartaa eber ha isla baxan maxay inta kula mid tahay waxay inta kula mid tahay 22 hadii alla ku samoogel yahay la hoos dhigay 22 inta waad si yareyn kartaa 22 waxaad u qaybisaa 2 waxa weeyaan hadii alla ku samoogel yahay waa 12 haye 20 kana 2 u qaybi waxa weeyaan waa 10 marka ardayo hal labaad lagu daray eber dhibic 6 waxay noo la mid tahay 12
tobanaad ayay noola mid tahay oo ah jajab. halkaas aynu kaga gudubno tusaalaha koobaad, su-aasha koobaad iyo su-aalihiisii soo hoosgeliyay. eegana tusaalaha su-aasha labaad aan u gudagalno. waxaana la yiri ma u qori kartaa abyoone kasta saansaanta a loos dhigay ba? waa su-aal lagu weydiiyey. ma u qori kartaa abyoone kasta, tirooyinka abyoonayaasha ahayn soo baranay ee ka koobnaa ururka tirooyinka tirsiimo, ururka tirooyinka idil iyo ururka tirooyinka tirsiimo lidkooda oo ah tirooyinka 10 oo la isku yiraahdo ururka tirooyinka abyoonayaasha. miyaad u qori kartaa miyaad u qori kartaa saansaantan a loos dhigay ba oo ah jajab? dabcan ha, tiro walbo abyoona ah waxaa loo qori karaa saansaantan a loos dhigay hadduu alla kuu samoogal yahay a loos dhigay ba oo ah saansaanta jajabka. halkaas marka waa jawaabta su-aasha labaad. eegana su-aasha saddexaad aynu u gudagalno. su-aasha saddexaad ardayay waxaana la yiraahdaa fiiri saddex xagalada soo socda. waa kuwan saddex xagaladii. su-aasha saddexaad waxaa hoos yimaada laba su-aalood oo dhahaya ba iyo ta. su-aasha hore ba waxaana la yiri jajab intee ah ayaa dhammaan saddex xagalada haraysan? saddex xagaladu waa 1, waa 2, waa 3, waa 4, waa 5. waa 5 saddex xagal. 5ta saddex xagal waxaa haraysan 1, 2, 3. saddex xagal ayaa haraysan. sidaa darteed waxaanu dhahaynaa jajab intee ayaa dhammaan saddex xagalada haraysan. marka lagu yiraahdo waxaad dhahaysaa 5 meelood. 5 meelood markii loo dhigay saddex xagaladii 3 ka mid ah ayaa haraysan. marka 3/5 qaabkaas ayaad u qoraysaa oo uga jawaabaysaa. tan kalena ee taana waxaa lagu yiri jajab intee ah ayaan saddex xagalada haraysnayn? saddex xagaladii waa kuwa 5tii saddex xagal. 2 saddex xagal oo ka mid ah ayaan haraysnayn. markii saddex xagaladii loo dhigay 5 meelood 2 ka mid ah ma haraysnaa. marka 2 meelood ayaan haraysnayn markii saddex xagaladii loo dhigay 5 meelood. marka 2/5 ayaad u qoraysaa ood uga jawaabaysaa su-aashan taana. halkaas aynu kaga gudubno su-aalihii lana yiraahday ka jawaaba. eega marka arday halkan soo fiiriya si fiican. tiro walba oo aad soo aragteen, tiro walba oo aad soo aragteen tan iyo fasalkii 6. halkan fiirso. tan iyo fasalkii 6 waxaa loo qoran karaa jajab ahaan. dhammaan tirooyinkii aad ku soo aragteen fasalkii 6 ee ay ka midka ahaayeen ururka tirooyinka abyoonayaasha dhammaantood waxaa loo qoran karaa jajab ahaan. tusaale ahaan -3 oo ah tiro abyoona. -3 waa tiro abyoona waxaana loo qoran karaa jajab ahaan taasoo ah -3 loo qaybiyay 1. -3 xalaad oo haddaad -3 aad u qaybisid 1 waxaad heli 3dii. waa isku mid. intan marka waxay kula mid tahay 3. sidaa daraadeed -3 waa tiro abyoona waxaana loo qoran karaa jajab ahaan. dhammaan tirooyinka abyoonayaashana waxaa loo qoran karaa jajab ahaan. halkan soo fiiri 3/8 waa jajab dhafan waxaana loo qoran karaa jajab ahaan oo 3/8 waxay noola mid tahay 25 8. 8 lagu dhuftay 8 lagu dhuftay hadduu alla kuu samoogal yahay 3 waa 24. 24 lagu daray 1 waa 25. hoosayihiina waa la soo qaatay. marka 3/8 waxay noola mid tahay 25 8. -1.6 waa jajab 10 leh. iyadana ardayay waxaa loo qori karaa jajab ahaan taasoo noqonaysa maxay noqonaysaa? waxay noqonaysaa -8/5 ayay noqonaysaa. 2 waa tiro abyooni. waan wada naqaanaa. waxaadna u qori kartaa jajab taasoo noqonaysa 2 xalaad oo haddii aad 2 u qaybisid 1 waxaad heli 2. marka tan
waxay la eg tahay oo isku mid yihiin taas. marka tiro walba oo abyooni ah, tiro walba oo jajab dhafan ah, tiro walba oo jajab tobanla ah waxaa loo qori karaa ardayay jajab. intaas mar walba waa in aad xasuusataan. ardayay halkan soo fiiriya tirooyinka sidan ah waa kuwan, waa tirooyinka jajabka ahee. tirooyinka sidan ah ayaa loo yaqaanaa lakab. tirooyinka sidan ah ayaa loo yaqaanaa tirooyin lakab. tiro walba oo loo qori karo jajab ahaan tirooyinkaasoo dhan waxaa la yidhaahdaa tirooyinka lakab. magaca lakab waxaa looga jeedaa in tiro loo qori karo jajab. laba abyooni ah, in tiro loo qori karo jajab laba abyooni ah. ardayay lakab sidoo kale macno ahaan waa wax isdul saaran. wax markay isdul saaran yihiin ayaa la yidhaahdaa lakab. marka tiro walba oo isdul saaran oo loo qori karo sida jajabta ayaa waxaa la yidhaahdaa ururka tirooyinka lakab. intaas weeyaan. eegana ardayay aynu isla fiirino qeexida 1.2. qeexidana 1.2 culimada xisaabta waxay ku qeexeen tiro lakab waa tirada loo qoran karo a la hoos dhigay ba. ba'na marnaba ma noqon karto, calaamadaas waxa weeyaan way ka gedisan tahay oo ma noqon karto eber. taasoo a iyo ba waa labadan tiro la isku dhigay. a iyo ba ay yihiin tirooyin abyoon ay yihiin. waa laba tiro abyoon oo la isku dhigay. ururka tirooyinka lakab waxaa lagu calaamadiyaa calaamada qa'da weyn. waxaana loo qeexaa sidan. qa oo ah ururka tirooyinka lakab waxay la mid tahay tidicdii baa furtay a la hoos dhigay ba. ba'na marnaba ma noqon karto eber. a iyo ba labadan tiro la hoos dhigay a iyo ba'na waxay ku jiraan oo ay ka mid yihiin. calaamadaas waa calaamada ka mid ahaanshaha, xubin ka ahaanshaha. waxay xubin ka yihiin ama ay ka mid yihiin z weyn. zda weynna waxa weeyaan calaamada ururka tirooyinka abyooniyaasha. ardayay dhammaan tirooyinka abyooniyaasha waxaa loo qoran karaa jajab ahaan. dhammaan tirooyinka jajab ahaan loo qoran karana